maanta waxaan leeyahay hambalyo difcaddii 14aad ee ka qalin jabisa iskuulkan ayaan leeyahay hambalyo waxaa kaloo iyaduna maanta xasuus mudan difcaddan 14aad maamulku aad buu u ammaan badan buu siiyey marka runtii anna waxaan idinku baraarujinayaa inaad noqotaan difcaddii ugu xasuusta badnayd iskuulkan ee waxtarta way jireen difcado hore oo waxtaray iskuulka marka runtii waxaan idinku baraarujinayaa idina rajaynayaa inaad magacaana qaadataan maadaama waalidkiinni ammaanay oo runtii ammaano ay u mudan tahay tawaalidku ku ammaano inaad noqotaan difcaddii ugu waxtarka badnayd ee dib u soo xasuusatay iskuulkan intaa markaan dhaafo waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii maamulka iyo macallimiinta sanad kasta intaa in lee ku soo darsataa dalka oo waxtara runtii aad ba uga muuqataan dalka Somaliland xafiis kasta oo tagto waxaad ugu tegaysaa ardaydii soos anigu kolley nin weyn baan ahay oo xasuustaydu ma fiicna laakiin aad baa layga soo dhoweeyaa oo la yidhaahdaa waxaanu nahay ardaydii iskuulkaa ka baxday oo runtii halkaana mahad gaara baan u hayaa iskuulkan soos waa mahadsantihiin intaa waxaan ku darayaa 3 eray oo tardaarana ka ugu horeeya waxaan eray idinka odhanayaa diinta islaamka ka labaadna eray waxaan idinku odhanayaa dhaqanka ka saddexaadna waxbarashada diinta islaamka haddaan wax idinka idhaahdo warnimo yahow nimcada iyo deganaanta iyo xasiloonidu waxa ay ku jirtaa oo laga dhexelaya diinta islaamka ilaahay wuxuu yidhi nebi aadan markii laga soo saaray jannada ee ifka la keenay ahbiduu jamiican fa imaa yaatiyannakum minnii hudan faman tabica hudaaya falaa khawfa calayhim walahum yaxsinuun markii layna keenay ee aabbaheen adduunka la keenay waxa ilaahay yidhi hoobta oo ifka layna keenay waxaanu idiin keeni doonaa hanuun ciddii hanuunkaa raacda ma heli way ka nabadgeli doontaa baqe iyo murugo iyo xasni adduunyada dhibaatada ka jirtaana runtii waa intaa adduunyada gaaja kama jirto dhar la'aani kama jirto hooy la'aani kama jirto waxa ummaddu isu laynaysaa ee dhibaatada haysataa waxa weeye waa werwer iyo walaac iyo baqa ay ka qabaan rajada intaaba waxa laga hoosgelayaa shareecada islaamka marka intaba ka dhex doona shareecada islaamka runtii wadamadayna hogaaminaya ee inoo dhisayba iskuulkan aan joogno ee reer Yurub iminka walaac iyo werwer badan baa ku furan runtii maalin dhexdaasa nin khabiiro oo aan dhageysanayay waxa uu ka werwerayay ninkii caddaa oo adduunka ka sii dabar go'aya haddaa gashaan google oo eegtaan population goroska adduunku siduu u korayo dalal badan baa tiradoodu marba sii dhimaysa halka Soomaalida mar walba ay labalaamayso tiradeedu iyo dawladaha islaamka dalba mar walba populationkiis joogay uu sii yaraanaya waxay ka baqa qabaan inay adduunka marti ku noqdaan tira yar ku noqdaan la qabsado la hogaamiyo loo awood sheegto ninka caday sheegaana waxay yiraahdaan waa blue eye with golden hair waa nimanka reer Yurubiya in Mareykanka tagtay iyo in Australia tagtay marka runtii werwer iyo walaac bay qabaan Mustafa Xaaji Ismaaciil ba ka sheekeeya marba Mareykanku markuu ka yaabay dadka islaynaya waxay u fureen meel la isku dilo oo ay qoraan bal sababta isu dilayaan dadku markii si loo helo waxa la isu dilayo oo xal loogu raadiyo ayay uga jeedeen iyagu in xal la helo ayay u sameeyeen meel dadku isku qalo oo isku dilo waxa nasiib darro ahaatay intaan bal cilmi baadhistiiba lagu guulaysan oo aan la ogaan dadku waxay isu dilayeen in meeshiiba kiyuu loo qabsaday oo xaradhiig noqotay marka waa dad aan noloshii raalli ku ahayn nolosha dhadhankeedu maaha adduun badan oo hesho waxaad arkaysaa dad badan adduun haysto oo isdila war waa inaad farxad dareentaa ku qanacsanaataa noloshaada intaana waxa laga helayaa shareecada islaamka halkaasaan dhigay intaan idinka odhan lahaa shareecada islaamka
runtiina waa inaad ku qanacdaa qadarka ta ugu muhiimsan waa qadarka oo aad ku qanacdaa oo wixii dib kugu yimaada aad ilaahay u celiso oo aad qoonsato inaad adigu dhibta waxba ka qaban karin laakiin haddaad murugooto oo fata dhexda ka qaniinto oo tiraahdo maxaa sidaa u yeeli weyday dee murugun baa ku dilaysaa laakiin waa aad ku qanacdaa abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed Ismaaciil Mire wuxuu yiri nin kasta wixii loo katibay waa la kulansiin haddii uu kallaho ama uu kabtiyo ama kur dheer fuulo ninna inaanu soo kororsanayn kaa hal ogaado waa qadarku qanacsan yahay abwaanka weyn ee Ismaaciil Mire waa inaad qadarka saa ugu qanacdaa hadda macnaheedu ma aha ha shaqaysanina diintu waxay ina faraysaa xaqan inaad shaqaysato oo ifka aad u shaqaysato mid waligiiba noolaan doona aakhirana mid bari dhimanaya أعمل في دنياك كأنك تعيش أبداً وأعمل لآخرتك كأنك تموت غداً marka way ku furan yahay waxaana ugu fiican waa cibaado inaad dadka wax tarto inaad wax soo saarto inaad cilmi soo kordhiso inaad aqli soo kordhiso inaad dhaxal ka tagto waxa weeyaan xasanaad baa lagaaga qorayaa waa cibaado marka waxa qabsanina idin malihi laakiin u celiya wax walba ilaahayna abuuray oo qadarka ku qanca dhaqanka eray haddaan ka idhaahdo bini'aadamku wuu tartamaa hubba lagu tartamayaa awoodaa lagu tartamayaa waxaas waxa ma taraan ninka dilaayigi maaha ninka fiican waa ninkii kasbada ummadda maskaxdooda bini'aadamku raalli ka noqdo haddii maanta la yidhaahdo hoggaan doorta waxaad dooranaysaan ka cid walba ixtiraama ka cid walba weji wanaagsan ku leh ka aan dib lahayn ka caqliga wanaagsan ee dadka wax tara ma dooranaysaan ka dagaalka badan ka huruufka badan ka muranka badan runtii soo maaha sidaa yaa madaxu dooran lahayd gudoomiye nin akhlaaq leh soo sidaa ma runtii marka waxaad ku dadaashaa inaad kasbato caqliga iyo raalli ahaanshaha bini'aadanka meel kasta tagtaan taasaad kula dardaarmaya oo aad ka bilaabaysaan waalidka macallimiintiina cidda shaqada wadaagtaan cidda aad dariska tihiin dardaarkaygu waa kaa qofka ku xisaabtamo war galaaskan inta ka raalliya inta baan raalli ka ahayn inta kale hal raalli geliyo war jaarka yaa raalli ka ahayn inta ba soo raalli geli waa inuu ku kasbadaa madaxweynaha waxaan ku dooranaa waa inuu kasbadaa dadka marka waxaad ku kasban kartaa oo madax ku noqon kartaa oo cid ku hogaamin kartaa inaad kasbato maskaxda bini'aadamka oo dadku ku raalli ka noqdo waxa laga yaabaa laba nin oo isku daa oo isku qarniya oo isku waxbarasho haday magaalada Sheekh tagaan mid inaan koob shaaha lagu aaminay inuu cabo koob shaaha inaan lagu aaminay uu gaajo baqti karo midna uu raran karo waxa Sheekh yaaloona lagu aamini karo marka noqda kii kasbada aqliga bini'aadamka eray waxbarashada aan ka idhaahdo warnimayo runtii cilmi anuu ni weyn oo daabanahay maantaan ugu jecelahay inaan wax barto run baan idin sheegayaa laakiin waqti uma haysto halkana leega yeedhaya tana leega yeedhaya hebel naga soo qabaa leeyahay shaqadii iyo biilkii carruurta leega sugaya waqtiba ma heli karo waan xasuustaa markii aan shaqada bilaabay waxaan mas'uul ka noqday meel yar oo la oran jiray adaptive trial beerahan bartay anigu marka meel dhirta lagu tijaabiyo yar baan ka ahaa markiiba waxay xanibay statistics ayay xanibay oo markii aan daatadii ururiyay data tabulation iyo inaan daatadii ka hadliyo oo kari waay runtii Australia bay gacan qabtay oo waxa course yar baa la diro statisticska markaan 3 bilood soo qaatay waan ka adkaaday wixiiba waxa ku muuqanaysa godolooladaada markiiba markaad shaqayso imika waxa ay muuqdo runtii beeraan ku fooganahay qaar aan leeyahay qaar aan shaqaale ka ahayba ciidii baan isla diidanaa hadba waxaan arkayaa oo soo qaadanaya buug yar oo organic chemistry ka hadlaya oo waxaan eegay warbal ciidan elementkan uu geedku doonayo maxaa ku lifaaqan maxaa loo compounda sidaad free uga dhigi lahayd maanta ugu baahi badan aqoon
war maanta jaanis haysa reer ma liidin caruuridnimo socoto waxba la idin siinaya iskuulkii baa la idinka bixinaya waxaan idinkula talinayaa aabbayaal waxbarashada ku dadaala oo waliba waxaad tihiin arday bayskoodu dhisan yahay qaybta sayniska inoogu dadaala taasaynu ku horumari karaa taasaynu wax ku noqon karaa markaa waxaan idin farayaa iminka ninowna ha shaqo tegin ku dadaala sidii aad wax u baran lahaydeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu